بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. محمد وويل دلين يرأى قعمه سما شقيان لوجيه سنا مشقيان. مصطفى sidoo kale waa wiil dhalinyaro ah gacmihiisu ma shaqeeyaan lugihiisu kuma socon karo mana hadli karo mid kale dhagihiisa waxba kuma maqlo mid kale indhihiisa waxba kuma arko in fara badan ayaa xanuun u jiifta dhakhaatiirta boqolaal kale ayaa dhibaatooyin kale ay haystaan qaar baan haysanin quudka ay cunayaan waxa aan maanta doonayay inaan wax yar ka tilmaamo inta ka soo horjeeda baa waxaynu haysanaa nicmooyin aad u fara badan oo aynaan tiro koobi karaynin nicmooyinka faraha badan leh aynu haysano baa waxaan wax yar ka tilmaami doonaa hal wado oo ka mid ah wadooyinka nicmooyinkaasi iyo galadaha Ilaahay ina siiyay ay noogu joogi karaan inooguna siyaadi karaan inoogu kordhi karaan inaan wax yar ka tilmaamo intayna bilaabin aan isweydiino hortay maxaynu haysanaa waxaynu haysanaa nicmooyin aad u fara badan oo aan la tiro koobi karaynin waxa ugu weyn galada ugu ballaaran ee maanta adduunka korkiisa aynu ku haysanaa waa islaamnimo taasoo ah diinta kaliya ee xaq ah ee Ilaahay uu soo dejiyay waa sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu quraankiisa ku sheegay inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam iyo aayad kale Ilaahay uu leeyahay qofka Ilaahay agtiisa waxaan islaamnimo ahayn wax kaga doona kaga heli maayo waman yabtaghi ghayra al-islaam diinan falan yuqbala minhu imisa adduunka maanta korkiisa ku nool ayaan iyagu haysanin nicmooyinka faraha badan leh ee islaamnimadu ay ugu weyn tahay waxaynu kala haysanaa nicmada iimaanka waxa aynu haysanaa nabadgeliyo waxa aynu haysanaa nicmo waqtiga dhalinyarnimada iyo ta aynu ku nool lahay nicmooyinka faraha badan leh ee tiradooda aynaan soo koobi karaynin haddaynu wax kale iska deyno jirkiisa haddii qofku uu fiirsado waxa uu arkayaa nicmooyin fara badan oo in badan oo dadka kamid aanay haysanin nin kamid ah ummadihii hore ayaa waxa uu soo galay meel tuula ah waxa uu ku arkay lafahaas oo waqti hore meesha la dhigay burburay baaliyay dhamaaday waxana uu isweydiiyay su'aalo ah talo lafaha sidan u dhamaaday sidee dib loogu soo celin karaa Ilaahay isagoo u jawaabaya ayaa waxa uu ku yiri inta aad lafahan ka fakarayso dib u soo celintooda iyo dib u soo noolayntooda waxa ka mudnayd inaad isweydiiso abuurka adigu aad abuuran tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ku yiri qofka adoonka miskiinka ahi tusaalu noo soo qaatay wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah tusaalu soo qaatay laakiin abuurkiisii buu ilaaway taasoo macnaheedu uu yahay inuu qofku mar walba ka fakaro abuurka isagu abuuran yahay sida Ilaahay uu quraanka mar kale ku yiri wa fi anfusikum afala tubsirun nicmooyinka aynu soo sheegnay faraha badan leh ma aha kuwa la tirin karo inaan la tirin karinna Ilaahay baa inoo sheegay oo Ilaahay waxa uu leeyahay wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha haddii aad isku daydaan ama aad u hollataan ama aad u dhaqaaqdaan inaad tirisaan nicmooyinka Ilaahay idin siiyay marnaba ma tiro koobi kartaan haddaba maxaynu u baahanahay si nicmooyinka iyo galadaha faraha badan leh ee aynu haysanaa ay inoogu joogaan inooguna sii kordhaan Ilaahay baa inoo ballan qaaday oo ina yiri wa itta'adana rabbukum la in shakartum la aziidannakum Ilaahay waxa uu leeyahay galadaha aan idin siiyay ee aan la tiro koobi karin ee faraha badan leh haddii aad ka mahadnaqdaan oo Ilaahay aad uga mahad celisaan Ilaahay wuxuu yiri waan idin kordhinayaa haddaba mahadnaqa galadaha Ilaahay ina siiyay ayaa waxa ay maraan 3 marxaladood oo kala dambeeya ta ugu horeysa waa inaad garato nicmada Ilaahay ku siiyay goorta aad wax cunto waa inaad garato inaad haysato nicmo Ilaahay ku siiyay marka aad wax cabto waa inaad garato in Ilaahay uu kugu galaday inaad wax cabto marka aad seexato waa inaad garato in Ilaahay ku siiyay galada ah inaad hurdo seexato oo adigoo bad qaba aad soo toosto inaad garato ayaa Ilaahay in badan wuxuu quraanka inagu faray inaynu adduunka korkiisa marno oo marar badan aynu soconno
quraankana waxaynu mar walba ku aragnaa afalam yasiru fil ardi in badan iyadoo la ina leeyahay dhulka korkiisa maad socotaan iyadoo la ina faray inaynu adduunka kor soconno si aynu mar walba uga fakarno nicmooyinka ilaahay ina siiyey qodobka labaad waa in qofku afkiisa ka mahad celiyo oo mar walba uu yiraahdo ilaahay baa mahadle taasoo ilaynoo jideeyay qofku marka uu cunto cuno inuu yiraahdo ilaahay baa mahadle marka uu cabitaan cabo inuu yiraahdo ilaahay baa mahadle marka uu hurdo ka soo tooso inuu yiraahdo ilaahay baa mahadle in afka marka qofku uu ka mahad celiyo qodobka saddexaad oo ah ka ugu mudan ayaa ah mahadnaqa inaad ficil u bedesho oo mahadnaqii aad ula timaado adigoo ficil u bedelaya nabiyullaahi daawud calayhi salaam iyo dadkiisii ayaa ilaahay wuxuu amray inay la yimaadaan mahadnaq iyagoo camal la imanaya i'maluu aala daawuuda shukraa ilaahay waxa uu leeyahay reer aala daawuudow qabta mahadnaq oo ficil markaa ah sida awgeed ayaa waxaynu u baahannahay kow inaynu garanno nicmooyinka ilaahay ina siiyey laba inaynu afka ka mahad celinno oo mar walba afkeennu uu ku celceliyo inaynu ilaahay u mahadnaqno oo alxamdulilah aynu nidhaahno iyo inaynu camal saalixa iyo fal wanaagsan kaga markaa mahad celinno wixii ilaahay uu ina siiyey waxa haddaba iyaduna lagama maarmaana inaynu ogaano qodob aad u muhiima oo dadka badankiisu aanay aqoon oo ah in bani aadamka loo mahadnaqo in bani aadamka loo mahad celiyaa waxay ka mid tahay adigoo ilaahay u mahad celiyay sida uu nabiguba sheegay man lam yashkuri nnaasa laa yashkuri illaah qofka aan bani aadamka u mahad celini ilaahayna uma mahad celiyo waxa kale oo iyaduna muhiima in la ogaado qofka wanaag kuu sameeya ee gallad kugu leh inaad mahadnaq ugu jawaabto oo adiguna wixii kaleed u geli karto aad u gasho haddii aad waxba u qaban kari weydana in ugu yaraan aad u ducayso oo aad ku tiraahdo wanaagga aad ii samaysay ilaahay ha kaa abaal mariyo waa sida uu nabigu inoo tilmaamayo ee uu leeyahay man sunica ilayhi macruufan qofka wanaag loo sameeyo oo faqaala lifaacilihi qofkii galladaa u sameeyey ee wanaagga u sameeyey ku yidhaahda jazaaka allaahu khayra ilaahay ha kaa abaal mariyo qofka intaa yidhaahdaa faqad ablaga fi thanaa wuxuu leeyahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qofkaasi si dhammaystiran ayuu mahadnaqaasi u celiyey inaynu garanno in mahadnaqu dadka dhexdooda uu keeno in cilaaqaadka iyo xidhiirka dadku dhexdooda ay leeyihiin inuu sii dheeraado oo uu sii adkaado waxaynu u baahannahay inaynu isbarno dhaqanka ah waad mahadsan tahay waxaynu u baahannahay inaynu isbarno qofka wanaag inoo sameeya inaynu ku nidhaahno waad mahadsan tahay waxaynu u baahannahay inaynu mar walba ku talagalno qofka wanaag inoo sameeya inaynu ficil iyo af intaba aynu ugu mahad celinno waxa aan doortay inaan hadalkan kooban ku soo qaato inaynu mar walba isku dhiirigelinno inaynu mahadnaq la nimaadno inaynu ilaahayna abuurtay u mahadnaqno inaynu waalidkeen u mahadnaqno inaynu qaraabadeenna u mahadnaqno inaynu saaxiibadeen u mahadnaqno in bani aadamka inoo shaqaynaya in u mahadnaqno in qof kasta oo inuu gallad inagu leh aynu mar walba u mahadnaqno waxaynu u baahannahay inaynu dhaqankeenna ku darno mahadnaqu inuu noqdo qayb inaga mid ah oo mar walba aynu dadka la wadaagno intaasaan jecelahay inaan idinla wadaago anigoo dhammaantiin idin leh ilaahay ha ina waafajiyo inaynu mahadnaq la nimaadno oo xaqiisa iyo xaqa bani aadamkaba aynu ka mahad celinno dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa waxaana aan kaga baxayaa anigoo dhammaantiin idin leh ramadaan kariim